qisada nebi aadam naxariista eebbe korkiisa ha ahaatee. Inta aanan ka warramin qisada nebi aadam waxaa habboon in aan wax ka nidhaahno sidee buu ahaa koonka ka hor nebi aadam naxariista eebbe korkiisa ha ahaatee. Marka koowaad eebbe Allah wuu jiray iyadoo aanay cid kale oo noola ah koonka jirin, waannu jiri doonaa abidkii. Ilaah baa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan. wixii ugu horreeye uu eebbe abuuray waxa weeye carshigiisa. Muddo kadib eebbe waxa uu abuuray qalinka. qalinkii baa eebbe amray in uu qoro. qalinkii waxa uu yidhi, eebbow maxaan qoraa? eebbe waxa uu ugu jawaabay, qor wax kasta oo jiri doona ilaa inta ay maalinta qiyaamaha ka dhacayso. wax kasta siduu noqon doono iyo cidhib dambeedkiisaba ayaa la qoray 50 oo sano ka hor intaan eebbe abuurin dhulka iyo cirka. wakhti kadib ayuu eebbe abuuray 7 dhul iyo 7 cirba. sidoo kale eebbe waxa uu abuuray buuraha, badaha, webiyada, meerayaasha qorraxda, dayaxa iyo dhammaan wixii ku guda jira 7 dhul iyo 7 cirba. dhulka iyo cirkaba eebbe waxa uu ku abuuray 6 maalmood oo keliya. kadib markuu eebbe abuuray 7 dhul iyo cirkaba waxa uu dhulka ku abuuray noolahaas oo ahaa jinka. jinku waxay ahaayeen qoom dhulka fasahaadiyey, dhiig daadiyey oo isku xadgudbay. kadib markay dhulka qaseen ayaa eebbe u soo diray malaa'ig ciqaabta. abuurista jinka kadib waxa uu eebbe doonay in uu abuuro noole kale, noolahaas oo beddeli doona jinka. ilaahay kor ahaaye waxa uu la hadlay malaa'igta isagoo ku leh, waxaan abuuraya basharkaas oo deegaankoodu noqonaya dhulka. malaa'igta eebbe oo ah makhluuqaad aan eebbe hadalkiisa marnaba diidin una hoggaansan amarka Allah ayaa weydiiyey ilaahay, ayaga oo doonaya inay ogaadaan oo aqoon u yeeshaan makhluuqa ilaahay damcay in uu abuuro. waxayna dhaheen, eebow ma waxaad ka yeelaysa kuwa fasahaadiya oo dhiiga daadiye? malaa'igta arrintan ulama jeedaan inay eebbe hadalkiisa diidan yihiin ama ay ka soo horjeedaan go'aanka eebbe waxaa weeye oo keliya inay aqoon u yeeshaan noolahaas eebbe abuurayo. malaa'igta eebbe oo hadalkooda sii wata ayaa ku yidhi eebbe, annagu malaa'igta waan kuu tasbiixsanaa kuna caabudnaa. macnaha aayadan siday culummadu ku fasireen waxa weeye, maadaama aan annaga oo ah malaa'igta ku caabudayno oo kuu tasbiixsanayno gelinka hore iyo gelinka dambaba, waa maxay qasdiga ama ujeeddada loo abuurayo noole ayadoo laga yaabo inay dhulka ay u geystaan xumaan iyo dhiiga oo la daadiyo? arrintan malaa'igta eebbe kama aha xaasidnimo iyo xaqdi, waa ka wardoon sidaan hore u soo sheegnay. eebbe waxa uu ku yidhi malaa'igta, waxaan ogahay waxaydaan garanayn, maadaama uu ilaahay kor ahaayee uu yahay eebbihii koonka sameeyey. waxa uu kasayaa garanayaa mustaqbalka iyo qaybka, xumaanna waxaa ka nasahan oo ka dheer eebbe Allah. malaa'igta eebbe may fahansayn in noolahan cusubi uu ka duwanaan doono kuwii hore, ayada oo eebbe ka yeeli doono dhabarkooda nebiyo, rusul, kuwa runbadanayaal ah iyo kuwa eebbe dartii u dhinta. markii eebbe doonay inuu abuuro aadam naxariis iyo nabadgeli korkiisa ha ahaatee, waxa uu amray mid ka mid ah malaa'igtiisa in uu dhulka ka soo qaado ciid. ciidaas oo ka kooban noocyo kala duwan iyo midabyo kala duwana, tusaale ahaan midabka casaanka, guduud, midabka madow, midabka jaalle ah iyo midabka caddaanka ah. sidaa awgeed bay u kala duwanaatay midabyada ibnu aadamku. qayb ka mid ahi waxay noqdeen midabka casaanka, kuwa kale midabka madowga, kuwii kalena midaba caddaanka ah. sidoo kale waxaa kala duwanaaday habdhaqankooda iyo dabeecadahooda. waxaa la abuuray aadam maalin jimco ah, waxaana gacmihiisa sharafta leh ku abuuray Allah. ilaahayna gacmihiisu uma eka makhluuqaadka uu abuuray. eebbe ayaa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan oo ka dheer. intaa kadibna waxaa lagu daray ciidii biyo, wuxuuna noqday dhoobo. saas baanu ahaa muddo uu ilaahay og yahay. kadib waxaa isku dhegay dhoobadii oo waxay noqotay mid adag. muddo kadib waxa uu isu beddelay dhoobo engegtay. saas baanu ahaa muddo uu eebbe og yahay.
macnaha waa sida dhoobada laga sameeyo guryaha. Marka hore waa ciid aan ishaysan, kadibna waxaa lagu daraa biyo si ay isu qabsato, kadibna waa la qalijiyaa si ay u engegto. intii aan ruuxda lagu afuufin aadam waxa uu ahaa dhoobo muddo, waxaana dul meeri jiray malaa'igta ayadoo ka fakaraysa noolahan cusub, isna weydiinaya sida uu noqon doono noolahani. sidoo kale waxaa dul meeri jiray ibliis oo ka mid aha jinka, kadibna ilaahay karaameeyey oo sharfay oo laga maqaam dhigay malaa'igta. waana intii aanu gaaloobin. ibliis waxa uu galayay aadam joofkiisa calooshiisa, marna wuu ka soo baxaa isaga oo isweydiinaya talow arrinta noolahan cusub sideebay noqon. waxaana ka muuqda in uu xaasidayo iyadoo xataa aan ruuxdii eebe ku afuufin. waxaa eebe qadaray in uu ku afuufo ruuxda nebi aadam. waxa weeye taariikh cusub iyo bilowgii basharka, waana mowqif aad u weyn. sidoo kale dhammaan malaa'igta xagga sare joogtaa way sugayeen maalintan. ilaahayna waxa uu hore u amray malaa'igtiisa iyo ibliisba in ay u sujuudaan marka nafta lagu afuufo aadam. naxariista eebe korkiisa ha ahaatee. eebe waxa uu nebi aadam ku afuufay ruuxdiisa, waxayna naftii ka gashay madaxa iyadoo ruuxdu ay hoos u socoto. markay ruuxdii maraysay sanka ayuu aadam hindhisay. malaa'igtii oo agtiisa joogayna waxay ku dhaheen aadam, ilaahay u mahad celi. waxaanu yidhi aadam, eebe ayaa mahad iska leh. ilaahayna waxa uu ku yidhi, eebaha ha kuu naxariisto. naftii markay gashay aadam, mise waxa uu fiirinayaa dhirtii jannada iyo midhaheedii. ruuxdii waxay gaadhay caloosha, isla markiiba waxa uu aadam doonay in uu qabsado oo soo goosto midhaha jannada iyadoo aanay weli ruuxdii gaadhin jidhkiisa oo dhan. sidaa awgeed buu eebe u leeyahay dadka waxaa laga abuuray degdeg. markii nebi aadam ruuxdii gaahay jidhkoo dhan, waxa uu eebe amray in uu u tago malaa'igta oo uu salaamo. waxaana nebi aadam uu ku yidhi malaa'igtii, salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakatuh. malaa'igtiina way ka qaadeen salaantii, wa calayka salaam. waxa uu eebe ku yidhi nebi aadam, taasi waa salaanta adiga iyo ubadkaaga. eebe waxa uu tusay nebi aadam dhammaan ubadkiisa oo dhan. masha allah, ka waran duriyada nebi aadam, ka soo bilowka ugu horreeyey ilaa ka ugu dambeeya. eebe waxa uu ballan ka qaaday dhammaan duriyadii nebi aadam. waxaanu weydiiyey, waa kuma rabbigiin? waxay wada dhaheen dhammaantood, rabbigayu waa allah. eebe waxaa ku yidhi nebi aadam iyo ubadkiisii, waxaan idinka digayaa inaad tidhaahdaan maalinta qiyaamaha, waxaan ahayn kuwo mooganayaal ah. kadib malaa'igtii dhammaantood kulligood waxay u sujuudeen nebi aadam. marka laga reebo ibliis oo isagu aan malag ahayn, laakiin ahaa jin oo eebe sarraysiiyey, sharafna u yeelay. ibliis muusan sujuudin, oo waa maxay talow sababto? ibliis wuu istaagay, mana uusan sujuudsanayn. eebe waxa uu weydiiyey ibliisow, maxaad u sujuudi weyday? eebe horeba wuu ogaa kibirka iyo isla weynida ku jirta ibliis lacnadii dusha ha fuushee. waxa uu ku jawaabay jawaab aad u xaqiran. waxaanu yidhi, ma waxaan u sujuudaa noole aad eebow ka samaysay dhoobo? aniga ayaa ka khayr badan oo waxaad iga samaysay naarta. ibliis wuu kibray, isla weynaaday, waxaanu galaya dembigii ugu horreeyey ee lagu sameeyo samada. waa la yaab iyo yaabka yaabkii. ibliis oo indhihiisa ku arkay in uu eebe gacmihiisa sharafta leh ku sameeyey nebi aadam ayaa sameeyey dembi aad u weyn. eebe wuu u jawaabay ibliis, waxaanu ku yidhi, ka bax ayada, macnaha jannadad waxaad tahay dayro. waxaana dushaada ahaatay lacnad iyo cadhadii eebe. naxariista eebena agtaada way ka fog tahay ilaa iyo maalinta qiyaamaha. eebe waxa uu ibliis ka eriyey, ka dayriyey jannadiisa iyo naxariistiisa. waxaana laga saaraya cirka iyo samooyinka eebe ee korreeya. kadib markii eebe dayriyey ibliis, muusan dalbanin cafis iyo naxariis, manuusan toobad keenin ee waxaa la sii weynaatay xumaantii iyo xasadkii naftiisa ka buuxay. haddii uu towbad keeni lahaa, eebe wuu ka towbad aqbali lahaa, laakiin waxa uu dalbaday arrin kale. waxa uu yidhi, eebow waxaad i noolaysaa ilaa inta uu qiyaamuhu ka dhacayo. ibliis wuu rumaysan yahay eebihii,
inuu isaga iyo dhammaan waxa koonka saaran uu sameeye. laakiin waxa uu ku gaaloobay waa isla weynida qalbigiisa gashay iyo xaasidnimada iyo xaqdiga uu u hayo nebi aadam iyo ubadkiisa. waxaa haddaba la yaab leh kuwa aan xataa aaminsanayn in eebbe dhulka sameeyey oo ku tilmaamay dabeecad samaysantay iskeed. waa wax lala yaabo. eebbe waa ka aqbalay ducadii ibliis isagoo oo ah ruux la lacnaday oo naxariista eebbe ka dheer tahay. ilaahay yaa ka naxariis badan. eebbe waxa uu ku yidhi, adigu waxaad ka mid tahay kuwo dib loo dhigay. macnaha ilaa qiyaamaha waad noolaanaysaa. eebbe waxa uu siiyey cimri dherarkii uu dalbaday. waxaanu eebbihii ku yidhi, eebow maadaama aad dib ii dhigtay, waxaan luminayaa durriyada aadam, waxaanan kaga imanaya dhinaca midig, dhinaca bidix iyo gadaalba, manuu oo dhan xagga sare ayaan kaga imanaya, sababtoo in eebbe ka sarreeyo ayuu og yahay. isaga oo hadalka sii wata waxa uu yidhi, maan heli doontid dhexdooda kuwo badan oo kuu mahadiya. eebbe waxa uu ku yidhi, adiga iyo ciddii ku raacda waxaan ka buuxin doonaa cadaabta jahannama, ilaahay baan ka magan galnay. eebbe waxa uu siiyey ibliisna ubad fara badan oo shayaadiin ah, una shaqeeya had iyo habeen si ay ula dagaalamaan aadam iyo ubadkiisa. ibliis waxa uu ku dhaartay eebbihii abuuray, waxaanu yidhi, sharaftaada iyo awooddaadaan ku dhaartee waan lumin. waxa uu yidhi, waxaan ka luminayaa dariiqaaga iyo waddadaada toosan. eebbena waxa uu yidhi, awooddayda iyo sharaftaydan ku dhaartee waan u dembi dhaafi intay dembi dhaaf i weyddiisanayaan. nebi aadam ninka waxa uu eebbe dejiyey jannada, waxa uu cunayaa midhaheeda, waxa uu cabbayaa biyaheeda. eebbe waxa uu ku yidhi, jannada dhexdeeda kuma gaajoonaysid, kuma baahiyoobaysid, kumana arradanaanaysid. nebi aadam waxa uu dareemay kelinimo, waxaanu isweydiiyey, ma adiga keligaa ayaa ku noolaanay nimcada intaan la eg? maalintii dambe ayuu nebi aadam seexday, waxaanu hareertiisa ka helay ruux dumar, waxaanu weyddiiyey, waa tuma? waxayna ku tidhi, waa ruux dumar ah oo waxa i abuuray eebbahay. oo muxuu eebbe kuu abuuray? waxay tidhi, waxa uu ii abuuray si aan kuula noolaado oo nolosha kuula qaybsado. malaa'igtii ayaa weyddiisay nebi aadam, magaceeda waa maxay? waxa uu ku yidhi, waa xaawa, sababtoo ah waxaa laga abuuray noole kale oo ah nebi aadam. xaawana waxaa laga abuuray feedha bidix ee nebi aadam, naxariis korkiisa ha ahaatee. waxayna muddo ku raaxaystaan nimcada eebbe ku manaystay. eebbe waxaa ku yidhi, waxaad cunataan dhammaan midhaha ka baxa jannada marka laga reebo hal geed oo laga mamnuucay inay u dhowaadaan. hadday u dhowaadaana waxay noqonayaan kuwa naftooda dulmiyey. waxaanad iska ilaalisaan ibliis oo idiin cadow ah, adiga iyo ubadkaagaba. ibliis lacnadii dushiisa ha ahaatee waxa uu dhegriyey nebi aadam iyo xaaskiisa xaawa, kumana odhan waxaad caasidaa amarka eebbaha, ee waxa uu adeegsaday qaab kale oo uu ku damacsan yahay inuu khiyaameeyo. waxaanu ku yidhi, ilaahay waxa uu idinka mamnuucay geedkan si aydaan u noqonin malag. miyaan aadamow jeclayn inaad noqoto malag? xaaway miyaanad jeclayn inaad noqoto malag? dhammaanteen waynu jecelnahay inaan noqonno malaa'ig. haddaba arrinku wuu fudud yahay, waxaad cuntaan oo keliya geedkan. haddii aad samaysaana weligiin ma dhimanaysaan, jannadana waad ku waaraysaan. nebi aadam ma rumaysan ibliis, waxaanu xasuustay cadaawadiisa. laakiin ibliis waxa uu adeegsaday qaab kale oo ah in uu dhaarto, kuna dhaarto magaca eebbe ee weyn. ibliis waxa uu gudagalay inuu dhaarto, ilaaha weyn baan ku dhaartee waan idiin nasteexaynayaa. isla markaas baa nebi aadam uu rumaystay ibliis, waxayna cuneen geedkii laga mamnuucay inay u dhowaadaan. xaawa way cuntay, sidoo kalena aadam waa cunay. nebi aadam ismuu lahayn noole eebbe abuuray ayaa magaca eebbe ku dhaaranay been. ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha yeelo aabbaha iyo hooyada basharka, adam iyo xaawa. aadam wuu ilaaway ballantii isaga iyo rabbigii dhex taalay, waxaanu rumaystay cadowgiisa ibliis. markay dhadhamiyeen ayaa waxa muuqatay cawradoodii, wayna kala yaaceen. waxayna isku dabooleen caleentii dhirta jannada.
eebe waxa uu la hadlay nebi aadam iyo xaawa waxaan dhahay miyaanan idinka mamnuucin geedkan oon idinka digin shayddaanka oo idin dhihinna ibliis waa idiin cadow. nebi aadam iyo xaawaba way ka shalleeyeen dembiga ay galeen waxayna baryeen eebahood, rabbigayow noo dembi dhaaf oo naga cafi dembigayaga. waxaa nebi aadam u yimi malakul jibriil oo waxa uu ka qaaday taajkii saarna, waxaanu u maleeyey aadam in ciqaabtii eebe ku dhacayso iminka. laakiin naxariista eebe ayaa ka dheeraysay cadhadiisa. eebe wuu ka aqbalay ducadoodii waanu u dembi dhaafay, laakiin ilaahay waxa uu qadaray in adam, xawa iyo ibliis ay u degaan dhulka, si ay u bilaabanto dagaalka qaawan ee ibliis ku hayo nebi aadam iyo ubadkiisa. eeba waxa uu yidhi, ruuxii raaca dariiqa tooska ma lumayo mana shallayn doono. ruuxii iskii u diida dikriga eebana waxa u sugnaatay nolol cidhiidhiya. nebi aadam iyo xaawa waxaa la keenay dhulka si ay ugu tarmaan oo ubad badan dhabarkooda uga soo baxaan. nebi aadam mar kasta oo uu xasuusto dembigii uu galay wuu ooyayaa oo wuu ka shallaynayaa in uu rumaystay shayddaanka ibliis. nebi aadam waxa uu ku yidhi eebbihii, rabbiyow gacmagaaha sow igumaad samayn, sow malaa'igta dhammaantood iimay sujuudin markaan hindhisay sallallahu calayhi wasallam. maad odhan rabbigaa ha kuu naxariisto. haddaba eebow ii naxariiso oo jannadii igu celi. ilaahayna wuu u dembi dhaafay addoonkiisa muuminka ahaa ee aabbaheen aadam. nebi aadam waxaa loo dhalay 2 wiil oo la dhaho haabiil iyo qaabiil. sida caadada ah waxay xaawa uurka ku qaadi jirtay wiil iyo gabadh mataano ah sannadkiiba. markaa wiilka sannadka hore dhasha waxa uu guursanayaa gabadha dhalata sannadka dambe, gabadha sannadka horena wiilka sannadka dambe dhasha ayay guursanaysaa. nebi aadam labadiisa wiil haabiil iyo qaabiil waxaa la dhalatay 2 gabdhood, waxayna isku qabteen gabadh ka mid gabdhii la dhashay, waxayna u dacwad tageen aabbahood aadam. aadam waxa uu ku yidhi, labadiina waxaad samaysaan qurbaan. qurbaanku waa wax loogu dhowaado ilaahay. markaa ciddii laga aqbalo ayaa guursanaysaa gabadhan. waxayna soo qaadeen qurbaankii si ay allah ugu dhowaadaan. qaabiil waxa uu lahaa beer halka haabiil uu ka lahaa xoolo. waxa uu qaabiil soo qaaday dalagii ka soo goy beerta. haabiilna waxa uu soo qaaday wan weyn oo cayilan. waxayna dhigeen qurbaankii buur dusheeda. kii alle ka aqbalo qurbaankiisa waxaa ku gubaysa qurbaanka naar xagga sare kaga imaanaysa. waxaana eebe ka aqbalay haabiil. kadib markii qaabiil arkay in haabiil laga aqbalay ayaa waxa qaaday cadho iyo xaasidnimo. xaasidnimadii waxay ku kaliftay in qaabiil ku hadido in haabiil uu dilo, waxaana dembiga ku riixayay ibliis oo been iyo khiyaano u dhigay. ugu dambayntii qaabiil waxa uu dilay walaalkii haabiil. waxaana la dhahaa qaabiil waxa uu soo qaaday dhagax weyn kadibna isaga oo hurda madaxa kaga dhuftay. waxaana dhacday dilkii ugu horreeyey ee adduunka ka dhaca. kadibna waxa uu dhabarka ku qaatay meydkii walaalkii, mana garanayo sida loo xabaalo noolaha. waxaanu dhabarka ku sitay sannado iyo muddo dheer. maalintii dambe eebe waxa uu soo diray tukahaas oo qodaya dhulka si uu u tuso sida loo aaso ibnu aadamka. waxayna u noqotay tusaale. waxaanu yidhi, ma waxaan garan waayey oo aana caajisay wax tuka gartay. kadibna wuu aasay walaalkii isagoo u qoday god kadibna ku riday. maadaama uu qaabiil ahaa qofkii ugu horreeyey ee dilka bilaabay, waxa uu qayb ku leeyahay dhammaan dilka adduunka ka dhaca. nebi aadam waxa uu baray ubadkiisii inay eebe keligii caabudaan oo iska ilaaliyaan ibliis iyo shayddaamada, kuna tusaale qaataan aabbahood iyo hooyadood sida uu uga soo saaray jannadii. ubadkiisiina way tiro bateen oo sii tarmeen. nebi aadam cumrigiisa wuu weynaaday, waxaana la dhahaa waxa uu gaadhay 1,000 sano. waxaana uu nebi aadam u dardaarmay wanaag wiilkiisii shiit iyo carruurtiisii kaleba. markii uu dhintay nebi aadam waxaa timid malaa'ig si ay u tusta ubadka nebi aadam qaabka loo dhaqo meydka loona kafno kadibna loo aaso. waxayna ku dhaheen ubadkii aadam, waa taas sunnadiinnii ee taas ku dhaqma. sannad kadibna waxaa dhimatay xaskiisii xaawa. waxayna u kalaheen xaggaas iyo jannadii rabbi.
ilaahay haynaga abaalmariyo qisadan oo dheer oo aan isku dayay inaan soo gaabiyo.